ay tahay fariin ay u dilayaan ummadda Soomaaliyeed maanta ayagoo sooman saa'imiintii la afurinayay raggii afurinayay ee u soo gurmaday dhulshay ugu yimid in lagu waxyeelayo waa fariin loo dirayo bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxa waajib nagu ah inaan ka baraarugno argagixisada iyo waxyeeladeeda arrinkanna waa arrin taabanaya ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed barmageedadeedii dadkii u soo gurmaday in miina lala eegto waxayna tusinaysaa halka cadowtooyada ay ka joogaan kooxaha qawaariidta dhammaan bulshada Soomaaliyeed goob kasta joogaan gobol kasta ay joogaan degmo kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa kuwii awalna la shaqeynayna ugu mahad celinaya kuwa kalena aan ka codsanayaa tanu ma ahan dagaal ma ahan diin ma ahan waa isirsifayn in barmageeda qaxooti iyo dad soo barakacay goobay joogaan oo Ramadaan lagu jiro waliba 10ka dambe ee qeyrka badnaa lagu jiro ay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii u soo gurmaday isku goob lagu baabi'iyo waxay la mid tahay fariin loo diray ummadda Soomaaliyeed oo anaga cadow aan ahayn magacaad Soomaaliyeed ma lihin marka argagixisadu ma jirto target ay ciidan dawlad ku leedahay target ay qof Soomaaliyeed ku leedahay waxay target waxa u ah magaca ummadda Soomaaliyeed oo ay maatidoodii maantay cadeen u tahay dadkii u soo gurmaday goobaha qaxootiga ee afurka lagu siinayay ummadda dhibaataysan lagu la beegtay waxyeelada waxaan leeyahay dhammaan qoysaskii iyo dadkii soo gurmaday ee ku waxyeeloway anoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyadeynayaa intii ku dhimatay inta ku dhaawacantayna Allah bogsiya leeyahay laakiin waxa ka xanuun badan fariinta ay nasiyeen ay ummadda Soomaaliyeed u reebeen kooxaha qawaariidta waa fariin la rabo inay bulshada ku baraarugto waxa haray ma jiraan mar haddii barmageedadii dadkii maatida ahaa qaxootigii iyo caruurtii dadkii u soo gurmaday oo soonka 10kiisa damba waliba maalmihii ay diintu sheegtay inuu qeyrka ku jiro oo tirada isdhaaf ka ahayd maalin kamid ah in meena la eegto taana ma aha wax lagu raadinayo yani ajir waa wax lagu baabi'inayo ama lagu sirsafeynayo magaca ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed baraaruga aan dhinac ugu wada jeesano sidaad ogolba gacan u siinaysan ciidamada qalabka sida goob kasto ay joogaan gacantii ay idin kaga baranay nagu siiya waxa harayna waa wax yar wayna ka talaabsan karnaa insha Allah mar dhow mustaqbalka dhow waa ka talaabsan doonaa waxaan rabaa dhacdo kale oo xanuun badan oo ka dhacday Darkeenley 3 bisha afraad 2024 abaaro 12 saac 5 daqiiqo galabnimo waxa eedaysane Daawud Bashiir Colow oo ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo fadhiyay kursi Baalbeeri iga kaaga kacmay anaa ka soo horeeyay oo ku dilay marxuumka la dilayna waa Saciid Cabdi Muuse waa ayadana waa arin kale fool xun in muwaadin Soomaaliyeed muwaadin ka soo horeeyay Ramadaan uu dilo kursi ciidanka booliiska Soomaaliyeed way ku guuleysteen gacanta ay ku soo dhigeen eedaysanihiina waxa la horgeyn doonaa hay'adaha ku shaqada leh fulinta shuruucda ay ka gudista waajibaadkii uu geystay ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgalkii ay sameeyeen way ku guuleysteen eedaysani gacanta ay ku soo dhigeen waxaana loo gudbin doonaa maxkamadda awood u leh inay ka jaasiso jaraa'imada uu geystay waxaan kaloo rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed halkan fariin ugu diro waxa bilowday toobabkii xilligoodii la galay waxa jira gobolka Banaadir meelo biifadhiisi ah oo loo cayimay dad masaakiin ay ku nool yihiin iyo guriyo ah intaas waxaan leeyahay maadaama ay roobka bilowdeen in laga warhaayo lagana guuro goobaha biifadhiisiga ah maadaama biyo badan isku imaanayaan magaaladan ay sidii hore ahayn oo ay hormartay meel walba la dhisay interlogyo la sameeyay daadadkuna ay nagu badan karaan waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed dadka degan goobaha biifadhiisiga ah inay baneeyaan oo ay ka fogaadaan guryaha daada ah ee roobka sida aan kuwii horeba ka baranay waxyeelayn karaana in laga fogaado insha Allah sidoo kale roobkaas iyo haddaba saameynta waxa jirta cudurrada faafa cholera oo bilowday kiisas lagu arkay magaalada jira roobkaas iyo goobaha qashinka lagu shubo oo badan awgeed waxa dhalan kara goobaha biifadhiisiga waxa ka dhalan kara cudurradaas oo waxyeelayn doona bulshada Soomaaliyeed sida darteed waalidiinta iyo dhammaan xarumaha caafimaadka
iyo bulshada indheer garadka inay dadka ka wacyigeliyaan goobaha roobabkana laga fogaado cuduradaasna laga difaac galo waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed booliiska Soomaaliyeed kiisaska uu qabanaya ma aha wax inta lagu soo koobi karo nolosha bulshada Soomaaliyeed oo la jaan qaada subax alla keena dhacdadina sida ay u leedahay boroskeeda la mariyaa laakiin waxaan idin soo tabin doonaa waxyaabaha muhiimka ah ee aan laga aamusi karin ee bulshada in la wadaago ay qasab tahay insha Allah waana mahadsantihiin Turkiya ahaayeen waa niman samafalayaal ah oo afurinayay qaxootiga ku sugnaa Garis Valley niman lagu bartay samafalkana lagu yaqaanay ahaayeen ilaahay naxariis janaa ka waraabiyo nimankaas ramadaankaas goobta lagu beegsaday ma ahan dhaawac kooban ma ahan waa boog ummadda Soomaaliyeed soo gaartay waa boog magaca Soomaaliya soo gaaray waa boog bulshada Soomaaliyeed soo gaartay waa fariin loo diray bulshada Soomaaliyeed hooyada maanta u taagneed in afur ay la siiyo iyo ninkii uga keenay meeshaas fog afurkaba in lagu beegsado goob taasi waa xanuun laakiin waa xanuun aan leenahay bulshada Soomaaliyeed waxay u gudbi doontaa sida ugu dhaqsiyaha badan fariimihii qawaariidta ugu yimid waan kaga jawaabi doontaa afayana waxa jirto in wadada Cabdiqaasim laga helay lug qof bini aadam oo leeyahay ilaa haddana ay booliisku qaadeen sababta loo heli waayo waa mahadsan tahay cadeymaheedana waxaan maleynayaa inay idinka haysaan oo baraha bulshada ay yaalaan CCTV kaamirada ka aragteen wacyiga bulshada Soomaaliyeed ay ku jirto oo yar aawi nin Soomaaliyeed xibin asaga ka bukootay laga gooyay oo la yiri markii uu bogsooday bukaan socod noqday qaad asturo uu soo qaaday laamiga dhigay waa ka war haysan baaristan waa lagu ogaaday dakiiskana waa socdaa laakiin ummadda Soomaaliyeed marka fiiriso aqliga saliimka uu eega waxaasi waxay u yihiin in qof maskax fiyow ay ka imaan fikirkaas sababtoo ah ariga hadii uu xanuunsado bukooda duugnaaba iska badhaaf qof bini aadana jirkiisa asaga jirkiisa inuu inta soo qaado laamiga dhigay marka waxaan leenahay maskaxiyan ayaa jirta dhaqaatiirtana baari doonta qofkaasu waa la hayaa kaamirsiisida ka aragteen meel walbana waa laga soo tabiyay insha Allah laakiin wacyiga bulshada Soomaaliyeed ay soo martaa fog meeshay ka timida fog marka waxaan leeyahay in la wacyi geliyo u baahan tahay bulshada idinkana kaalintiina qaadataan aad u mahadsantiin isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha Dr. Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurrada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamuugaan Dawo Clinic